markay dhuxulaysatadu dhengada qaaribiya dhaqaalid raadiya safay la faadhaco kasar waabkii dhammaa safay la faadhaco kasar waabkii dhammaa markay dhuxulaysatadu dhengada qaaribiya dhaqaalid raadiya safay la faadhaco kasar waabkii dhammaa safay la faadhaco kasar waabkii dhammaa ameertayaliyo intii dhambi laga daaqi jiray halkii dhabigiyo lahayd galolkii dhalali jiray saxara isku dhala rogto indhayaha lama saari karo ameertayaliyo intii dhambi isugu wada timi ee wasiirada leh ee agaasimayaasha guud leh ee leh cid kastaba leh maanta aan isleeyahay cidi kama maqna halkan hay'adaha leh ee leh hablo iyo dumarba maanta annaga maalin weyn bay noo tahay runtii Soomaalilandna maalin weyn bay u tahay sababtu wax weeyaan halkan maanta waxaanu dhagax dhigaynaa oo maanta la isugu wada yimi waxa weeyaan halkii santarkii loogu talagalay in lagu xanaaneeyo jiitaha lagu daweeyo lagu xanaaneeyo uu ku noolaado halkii loogu talagalay ayaa maanta la dhagax dhigaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halka waasteeyay waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan kalsoonida leh oo noola shaqeeyay si mashruucaasi u hirgalo iyo mashaariicda kaleba waxaan u mahadcelinaynaa oo si weyn ugu mahadcelinaynaa hay'adda CCF oo iyagu marka aanu soo qabanno oo la soo maaragtay badbaadiyo jiitaha ayaguna cuntadooda iyo daryeelkooda iyo dawadooda iyo seexintooda iyo wax walba qabashadooda u qabanayo waxaan soo koobi karo maaha ma hadaanu hayno maanta CCF ilaahay khayr ka siiyo ummadda reer Soomaalilandna waxaan leeyahay in allaaliyeyntii nala shaqeysay ee garab noo ahayd aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan maanta halka dignin ka siinayaa wax weeyaan qofka lagu qabto waa jeel waan ognahay waana maxkamad baa la saaraya waana jeel qofkii lagu qabta laga daba iman maayo maantana halkaasi waa halkii lagu xanaaneeyay waxaan u mahadcelinayaa dadka halka maanta ku nool ee reer Geedeble ee community-geena dadkeena iyaguna sida xilkasnimada ah isu xil saaray iyaguna nagala shaqeeyayna halkan noqoto meel runtii lagu xanaaneeyo waxana la shaqeeyay baraskaabka gobolka Maroodijeex waxana la shaqeeyay maareeyaha biyaha dad allaaliyeynta garabka weyn siisay ay kamid yihiin labada shakhsi aan maanta halka ku sheegay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay halka aynu maanta shaqada ka wadno inay shaqadu inooga sii socoto ayaynu u baahanahay waxa lagu dhagax dhigayaa sanctuary amba halkii lagu xanaaneynayay maxana xayawaanka loo yaqaan ama duurjoogta loo yaqaan cheetah waxaan ogsoonahay wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil Baadare markii horena deegaanka ka shaqeynayay iminkana wasaaradda deegaanka madaxa dawladda horteedna deegaanka ka shaqeynayay iyadii wasaaraddeeda iyo tiimkeedu inay door weyn ka qaataan badbaadinta maxaan dhahdaa harmaadka Geedeblana runtii waa mid ka mid ah sareeyaasha ay dawladdu gacanta ku hayso maanta halkan in loo asteeyo runtii shay aad loogu farxo oo aad loo soo dhaweeyo inay Soomaaliland maanta astaan ka mid noqoto astaamaha adduunka ee lagu badbaadinayo xayawaanka duurjoogta runtii magac iyo maamuus weyn bay noo soo jiidaysaa inaka dawladahan waxay muujinaysaa inaynu ka gudubnay dhismihii dawladnimada hoose oo aynu qayb ka nahay badbaadinta maxaa wildlife-ka adduunka marka aad baan ugu hambalyeynaa wasaaradda iyo cidii kala shaqeysay ku jirto hay'adda CCF sida wasiirkaygu sheegay runtii maanta anaga farxad gaar ah noo tahay wasaaradda ahaan aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay mashruucan oo muddo dheer laga soo shaqeynayay oo aad iyo aad loo soo galiyay waqti badan ma hadda koowad Ilaahay baa leh waxaan kaloo mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurta galiyay mashruucan inuu maxay tahay qabsoomo hay'adda CCF oo runtii dhabar maxay noo ah maxay tahay back-up-ka ugu weyn oo marka mashruuca GGT maxay tahay jiitaha meeshan noqon mayso oo qura meel jiitaha kaliya lagu xanaaneeyo waxaan rajaynayaa inay noqoto zoogii ugu horeeyay Soomaaliland yeelato taasina waxay na tusaysaa horumarka uu dalkeenu maalinta ka dambaysa ku talaabsanayo runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay aad baan ugu mahadnaqaynaa mustaqbalkana dhamaanteen inuu wada shaqeyno oo gacmaha isqabsano aad baa mahadsantihiin ciddii ka shaqeyso wasaaradda deegaanka ugu horeysay wasiir Shukri iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumarka ku suntan
oo suurtageliya inuu mashruucan inoo hirgalo iyo dhammaan qof kastoo ka shaqeeyay waan u mahad celinaynaa wuuna mahadsan yahay mashruucan waa mashruuc weyn laba qaybood buu faa'iido inoogu yeelan doonaa mar dalxiis ku xoojin doonaa marna xayawaankii naga sii dabargo'ayay ayaa waxa weeyaan qaniga ku ahayn ayuu inoo safe garayn doonaa marka ciddii ka shaqaysay oo dhan dhammaantood waan u mahad celinaynaa mashruuca waxaan leenahay waa mashruuc ahmiyadiisa leh horumarkiisa leh waxa kale oo u mahad celinayaa community-ga halkan degan geedeeblo iyaguna aad uga shaqeeyo maareeyo ka mid yahay iyo community-ga kale meesha odayaasha iyo dhammaan deegaankan dadka ka soo jeeda dhammaadna waan u mahad celinaynaa runtii Soomaaliland guud ahaan waxay astaan u tahay nabadgelyada duurjoogta iyo nabadgelyada bini'aadanka labadaba Soomaaliland waxay ku taallaa geeska Afrika waxay runtii ku tala gashay siyaasadeeduna ay tahay uu hogaaminayo madaxweynuhu in lagu badbaadiyo dhammaan adduunka badda maraya ee golofka ee gacanka cadmeed maraya oo ay dhabarka ku hayso oo iyadu ay bar ka tahay nabadgelyadeeda inay albaab u tahay dawladaha Afrika adduunka inay ka qayb qaadato qaybta ay ku leedahay nabadgelyada waxaan qabaa in Ilaahay nagu guuleeyay maanta adduunkiiba halkan isugu yimi aynu joogno si nabadgelyo ah baa halkan lagu joogaa waxaan qabaa inay noqon doonto waxa weeyaan astaan caalami ah oo nabadgelyada lagu yaqaan Soomaaliland waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa wasaaradda deegaanka oo suurta gelisay inay ilaaliso dhammaanba deegaanka iyo cimilada taasoo awgeedeen bishii la soo dhaafay doorkii weynaa laga qaatay waxa weeyaan la dagaalanka dhuxusha oo la dabar goynayay iyo waxa weeyaan dhammaanba xaalufka waxaan runtii dareemayaa inay shukri maanta aad iyo aad u faraxsan tahay iyo inta jecel in xayawaanka la daryeelo intuba oo ay maanta suurta gashay in dhul ballaadhan oo runtii ay xukuumaddu ugu deeqday jiitaha iyo intii kale ee lagu xanaaneyn karaba in halkan loo qoodeeyay oo loo qorsheeyay waa Ilaahay mahadi waxaan kaga baxayaa oo u mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay hore uga qayb qaadatay mashruuca inay wax ka tarto waxaan u soo jeedinayaa martida maanta inala joogta iyo inta kale ina maqlaysa hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah hay'aduhu inay ka soo qayb qaataan sidii loo hirgelin lahaa waxa weeyaan mashruucan jiitaha lagu deeriyeelayo iyo xayawaanka kaleba had bay tahay maanta inaan kala soo qayb galo maalintan taariikhda waxaan mar labaad u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka ugu horeysa wasiir aad iyo aad baan u ognahay hawsha waddanka Soomaaliland u haysid iyo duurjoogteenaba iyo environmentkeenaba haddii laga eego xaq dhaqaale maadaama aanu wasiir ku xigay dhaqaale ahay dunida waxaa lagu tartamaa sida dadka loo soo jeesto dalxiiska duurjoogtu waddankeena markan ajnabi maadaama waxay yiraahdaan waddankiina waxa kaliya ka maqan maanta inkoo duurjoogtiina soo celiya dadka u dalxiiska taga Afrika ama markasta ahaatee waxay wadamada u yimaadaan inay arkaan duurjoogta waddankaasi leeyahay iyo wixii indhuhu soo jiidan karaanba marka tan waa tii ugu horeysay aynu ku soo jiidan karna maanta dadka dalxiiska waddankeena badiya bari si kasta oo qurux badan ma sha Allah Ilaahay waddan iyo dhul wanaagsan buu ina siiyay badba waxa kaliya naga maqan duurjoogta bay naga guurtay oo dhibaatada lagu hayo daraadeed uga guurtay dhulkii laakiin haddii laga shaqeeyo waxaan u arkaa inay wax badan soo noqonayaan tanna waa tii ugu horeysay marka cid kastoo ka shaqeysay aad iyo aad baan ugu mahad celinaa wax weyn baad waddanka tarteen insha Allah waxaan rajeynayaa inay dad badan soo jiidan doonto indhahooda aad baad mahadsantihiin waa laga hadlay faa'iidada iyo mashruucan iyo waxaan mid uma ka hadlaya midna ka hadlay waxa weeye wax wala adduunyadan imaadaaba u qarsooyay marka hore ilaa bil aadmigu uur buu ku jiraa amba meel ka shaqeysan ku jiraa marka dambe ilmuhu dhashaa maxtara geedka midhiisa waa la aasaa waa soo baxaa waa la manacafsada arinta halkan maanta aanu joogno ee xanaanada jiitaha amba harmacadka in badan buu wasiir shukri maskaxdeeda ku jiray maantu ifka u soo baxay maantu sidii geed yar oo la beeray soo baxay Ilaahay ayna gaarsiiyo isagoo midhalkiisa aanu aragno oo meesha harmacad iyo xayawaano kale oo aynaan bariyaha aynu ku aragno
ilaahay baan ka baryaa inuu ina gaarsiiyo si aynu u garanno hawshii shukri haysay waxaa kaloo ku darayaa shukri maaha un jiitaha in ahliso environmentka amba dabeecadda waddankeena geed iyo xayawaan iyo dhir wax walba way ilaalisaa aadna way u shaqaysaa dad badan baa og dad badanina ma oga waxaan maanta leeyahay shukri qof wal oo reer Soomaaliyaadooba qof wal oo adduunka jecel inuu adduunka hor u maro oo environmentka hor ka dhawa caawi waxaad u qaban kartaa u qabo inna waxaad ma hawgeysan. Well, this is a symbolic day and I'd like to thank you all for being here. Minister, thank you so very much for making this happen. First National Park as well, and as if you look out here, as far as your eye can see, it is going to be wildlife in the name of the cheetah. And with this, though, this is actually the responsibility of the Cheetah Conservation Fund and private donors. And as we were saying also during lunchtime, America is a place where people donate. And this will be a part of America because the funding that is coming here is from our private donors. It's not government funding that's coming in here, although we would love to have more funding to help develop the park systems, because if you have national parks and you have a healthy environment, everything else works. And it's been a delight to be able to work together with our partners, from education to our health partners, and we thank you for helping bring everyone together here too. So thank you all for being here today, and an honor to be able to dig a hole, plant a rock, and say that the cheetahs will soon be here. Thank you so much. I would like to thank everybody who is here today for the groundbreaking of this great ceremony, which will be the center for the cheetah for Somaliland. It is an honor for all of us to have you in here, literally. And I would like to thank the President of Somaliland for asserting this land to the cheetah, to be the center of the cheetah. I would like to thank CCF for literally working so hard to rescue, to feed, to shelter, to house them. Without their support, I don't know where we have been today. I would like to thank everybody who is here. I would like the delegation who are here today to support us with this initiative. It is not an easy initiative. It is not, the wildlife is not for Somaliland, it's the wildlife belongs to the world, literal to the world, and cheetah belongs to the world. And it is going down day by day. In order for us all to rescue, it's our responsibility as a collective. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming again and again.